anigu ku hadlayo magaca guddiga maaliyadda inaan golaha hor keeno akhrintii labaad ee sharciga maamulka dakhliga. mudane guddoomiye sharcigan wuxuu soo maray marxalado kala duwan sida dhammaantiinna aad la socotaan. bishii May 2019 waa sanadkan gudihiisa waxaa garow ku shiray wasaaradaha maaliyadda ee dowlad goboleedyada oo soo saaray markaa war-saxaafadeed ayagoo ka cabanayo in sharcigan aanan ayaga lagala soo tashan markii draftingkiisii ugu horreeyey la qoraayo. kadib haddana waxaa isla garow ku shiray madaxweynayaashii dowlad goboleedyada ayagoo markaa war-saxaafadeed kala soo saaray oo ku taageeraya go-aankii wasiirada ay soo saareen oo markaana ay sheegeen in sharciga markaa uu ka dhaqangeli karaynin waddanka dhan maadaama waxba oo hali jiray contribution aysan ku lahayn. marka si loo helo sharci dadkii dhan ay ku wada qanacsan yihiin oo loo wada dhan yahay guddiga maaliyadda wuxuu faray wasaaradda maaliyadda in ay dowlad goboleedyadii ku noqoto oo ay ugu wacaan si wada tashi looga suubiyo markaa loo soo helo sharci dadka dhan ay wada dhan yihiin. laakiin middaa ma suura gelin. marka maadaama ay wasaaraddii ku guultaraystay in dowlad goboleedyadii wada tashi ay ku soo qanciyaan oo keenaan waxaa mas-uuliyaddii qaatay guddiga maaliyadda isagoo markaa si gooni ula hadlaayo dowlad goboleed walbo wada hadal dheer iyo maxaa la jiray wada tashi dheer dowlad goboleedyadii waxay naga ogolaadeen inay nala fadhiistaan sharcigaana marka ay nagala wada shaqeeyaan oo sharci loo dhan yahay marka la keeno. shaqadii ugu horreysay markaan sharci aan ka wada qabanay ayadoo loo dhan yahay waxay ka dhacday Ethiopia horaantii bishii September. marka shaqada ugu badneedoo marka aan ka qabanay sharcigan wuxuu ahaa luuqadda turjumadda. luuqadda uu ku qornaa sharciga aad bay markaa u liidatay. waqti dheer iyo juhdi dheer baan gelinay markaa in luuqadda si sax intii loo turjumo oo dee wax micno yeelanayo markaa laga dhigo. waxaana xusid mudan in sharcigan too technical uu yahay oo xitaa marmar aanan la heli karin luuqaddii af soomaaliga erayo si toos markaa turjumaad laga bixini karo waxa micnaha lagala jeeday weli shaqo u baahan yahay oo dee maxaa la jiray sharci walba soo ganayna dhinaca soomaaliga shaqo badan in laga qabto u baahan yahay laakiin shaqada ugu weynada marka aan ka qabanay waxay ahayd turjumadda. waxaan ku heshiinay halkaa in aan sharcigii dib ula soo noqonno oo waddankii gudihiis oo aan naga wada shaqeyno ku gebagabayno aan ku dhammayno maxaa la jiray sharcigii. taariikhda markay ahayd 26 ilaa 28 September waxaan haddana iskugu imaanay garowe dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir. qof walba markaa soo haysto maxaa la jiray information ku filan wixii falanqeyn markay kusoo subin lahaayeen qof walba si gooni markaa ugu soo subsaday. waxaana meesha ku heshiinay in sharcigii maxaa la jiray qodobo aan ka bedelno asoo loo dhan yahayna markaa golaha shacabka loo gudbiyo. waxaan rajaynaa sharciga sabtidii la geeyo marka waxaan rajaynaa in aad dhammaantiina soo aqriseen. marka sharcigan haddii aad aqriseen waxa ugu muhiimsan oo markaa ka hadlayo waxaa waaye basic foundationkii waxaa waaye revenue management. waxa uu ka hadlayo maxaa waaye cashuur yaa cashuur laga qaadaa qofkii cashuurta bixini waayo maxaa ganaax mutaysanaa qofkii cashuur badan bixiyo markaas qaabkee cashuurtii iyo lacagtii loogu celinaa cashuur celinta caadiga oo sanadlaha qaabkee loo subinayo waxyaaba noocaas. sharcigan kama hadlaayo qaybsiga dakhliga iyo khayraadka kamana hadlaayo dhismaha hay-adda cashuurta Somali Revenue Authority qaabkii loo aruurinayo maxaa la jiray heerkee dowladeed aruurinayo cashuurtee iyo waxyaabaha dhanna kama hadlayo. waa shuruuc kale oo dib loo subini doono. marka sharcigan waa general administration basic foundationkii oo revenue management uu waddanka ku dhiga uu qoray. marka qodobada aan ka soo bedelnay warqaddii aan idin qaybinay sabtidii ay ku wada qoran yihiin waa ilaa 7 qodob camal. arrangementaa lagu yara suubiyey qodobana wax yaraa lagu daray hal qodob oo cusubna markaas waa lagu soo daray. marka qodobada hadda waxaa laga bedelay waxaa ka mid ujeeddada sharciga oo markaa qodob ahaan aan oo ku qornaa laakiin qodob aanan la siin lambar la siinin waxaan ka dhignay qodobkii koowaad. waxaan ku kordhinay
ujeeddada xeerkani waa in lagu maamulo dakhliga dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya marka waxaan rabaa inaan idaa akhriyo waxaan ku darnay iyo qodobka hadda sida uu qoran yahay buuggaan aan qaybinayna waxaa waay qaabkii ugu dambeysay oo lagu soo heshiiyey waxaa kaloo xusid mudan heshiiskii aan la galnay markaas dowlad goboleedyadii waxaan kusoo lifaaqay sharcigan marka waa beejidka ugu hore waana wada saxiixan yihiin marka dowladaha dhan waa dowlad goboleedyada dhan waa ku wada dhan yihiin marka qodobka ugu horeeya aan waxaan ku bedelnay waa ujeedka sharcigan waxaana ku darnay qaybtan yar marka qaabku hadda u dhigaya waxaa waaye iyadoo laga ambaqaadayo qodobka kontonaad faqradiisa afraad qodobka 51 qodobka 122 125 farqadiisa koowaad ee dastuurka meelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ujeeddada sharcigan waa in lagu maamulo dakhliga dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya marka baadka dambe qaybta dambe aan kusoo darnay oo kusoo kordhinay qodobka 107 sharciga markoo la keenay 107 baa fasiraada ama eray bixinta sharciga asagana horey ka soo rabnay markaas qodobka labaad oo sharcigan hadda aan u noqday qodobka saddexaad ka bedelna waa qodobka lixaad faqradiisa koowaad waxaana lagu daray baadka lagu daray waa isagoo la tashanaya dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda federaalka qodobka haddii aan idin aqriyo qodobka lixaad marka wasiirku waxa uu soo saaraya waa xeer nidaamyaasha qodobka lixaad xeer nidaamyaasha wasiirku waxa uu soo saaraya isagoo la tashanaya dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka xeer nidaamyayaal lagu dhaqangelinayo sharciyada dakhliga sida ku xusan qodobka saddexaad sharciga aan waaye faqradiisa koowaad marka qaybtaasaan kusoo darnay qodobka asagana qodobka 106 asagana waxaan kusoo darnay badanaa waxyaabahan aan kusoo darnay waa la tashi lala sooganayo dowlad goboleedyadii iyo markaa inay iska dhaxarkaan sharcigan si loogu wada dhannaado marka qodobka 106 waxaa loo kordhiya isagana iyadoo lala tashanayo dowladaha xubinta ka dowladda federaalka si waafaqsan nidaamka federaaliga iyo dastuurka marka qodobka qaabkan u dhigmaa waa qodobka 106 shuruucda dakhliga waxaa lagu soo saaraya heer federaal dakhliyadan soo socda waxaa lagu soo saaraya laguna xirinaya sharci federaal iyadoo lala tashanayo dowladaha xubinta ka dowladda federaalka si waafaqsan nidaamka federaaliga marka shuruucda waa cashuuraha soo dejinta cashuuraha wax soo saarka sharciyo kale waa meesha ay ku wada taxan yihiin ayaga dhammaantooda qodobka 108 waxaa ku jirtay footnote notice camal oo markaa ay relevant annaga noola muuqato ayadana waan ka saarnay markaa wax sabab sugan maheen waxa ugu muhiimsan waxaan kusoo darnay qodob cusub qodobku waa 109 sharcigan hadda aan haysano waa awoodaha sharci fulineed waa qodobka maxaa la jiray hadda aan kusoo kordhino wuxuuna u qormaa iyadoo la tixgelinayo mabaadi'da guud ee federaalka ee ku xusan qodobka kontonaad 52 53 ee dastuurka meelgaarka ee dowladda federaalka soomaaliya wasaaradda maaliyadda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay u xil saaran yihiin mas-uulna ka yihiin marka canshuurahan ayaga u xil saaran ayadoo la tixraacayo dastuurka waa maamulka dakhliga iyo canshuureed ee deegaanadooda si waafaqsan shuruucda dakhliga iyo dastuurka dalka ka qayb qaadashada iyo ka tala bixinta saamaynta iyo wax ka beddelka shuruucda iyo xeer nidaamyaasha dakhliga ee uu soo saaro wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya iyo ka qayb qaadashada wax ka beddelka shuruucda iyo xeerarka khuseeya maamulka dakhliga ee dalka marka waa intaa qodobada ugu muhiimsanaa oo aan markaa wax ka soo bedelnay marka intaanan soo gabagabaynin waxaan rabaa inaan xuso in sharcigan uu yahay sharci ka mid ah benchmarkyadii ama halbeegyadii markaa deen cafinta aan hadda waddan ahaantii aan doonayay in noola soo biyo marka si deen cafintan lagu soo biyo sharcigan waa in madaxweynaha uu saxiixaa ugu dambeyn October 31 waa bishan gudaheeda inuu saxiixo maalinka ugu dambaysa bishan inuu saxiixo deadline-ka marka waxaan haysanaa hadda ilaa maalinka 10 maalmood sharciga procedure-kan waxaa waaye in aqalka sare la mariyo ayaga ay soo ansixiyaan kadib madaxweynaha loo gudbiyo marka waqti
aad iyo aad u yar baan haysanaa marka maadaama dee marka qodobada badanna markaa laga soo bedelin sharcigan waxyaabaha laga soo bedelayna ay tahay dee political agreement iyo heshiis loo soo galay dowlad goboleedyadii waxaan ka codsanaa xildhibaanada sharafta leh dee wixii fikirkooda markaa inay kusoo daraan maantana loo codeeyo qodobadii haddii qodobo lagu soo daro hadda wax laga bedelo computerkayga waa wataa aniga mashiin camal loogu shaqeeyaa haddaan meesha ku bedelaa marka insha allah waxaan idinka codsanaa mar labaad sharcigan kaga doodo maanta nolol waa mahadsantiin